أباي كتينة دوا بصوه شيء يا كوكاني مسك لقى يا دور كاديشك ما يمادن عثمان ayaa u sheegay asigaana doorkayga doonay kadibna wuu ii keenay waa maxay katiinadan waxa muhiimka ah ku jira maxay se tahay sababtu noo yiri waa katiinada aad ku badbaadaysaan waa ina ogaanaa katiinadan wax ku jira qofka kaliya oo noo sheegi karana waa Takfuur haddii mudane atuur u sheegna ka warana baayo waayo mudane atuur qof fiican waayo garabna wuuna siinaa abaay dadkaas dhibaato fara badan ayaa u geysanay annaga muhiimadana waxay tahay magaalada inaan ka tagno aan Takfuur u tagno weliba markaan ka tagayna si Dhoomaaleysi waa inaan ugu tagnaa cid bini'aadan aysan ogaan ma fahantay hadalkayga hadda wadadaasoo keliya ayaa noo bannaan haddana teendhada si Dhoomaaleysi ayaan ugu baxaynaa abaayo soo bax abaayo anigu waan baqaya teendhadani sidee ugu baxaynaa adiga inaa cabsato lama baahno waqtigan waa waqtiga ugu fiicnaa mudane Artuur ciidankiisana maba joogaan way kala maqayn annagan halkan waa ka dhumanaynaa adiga aniga oo kaliya la soco gabdhaha waa soo baxeen muujidaan haddii ay badbaadaan daraagus wala dilaan annaga nakeena
walaalkaa cusmaan dib u laabo intaan kadib kuma sii kaxayn karo meesha u socda khatarteeda ayay leedahay dembigayga dembi ha igu dirin waan ku baryaa walaal dib u laabo kuma sii kaxayn karaan ku dhahay dilkan dhac annagaa noola haystaa walaalkee walaal cusmaan waan ku baryaa dib u laabo inta dhiman anagaa dhammaystiraaya adiga mariga inaan baxad ku geliyo waan ku baryaa dhibaato kale kuma horseedi karo dhibaatadan aniga keliya igu sii daa walaal dhibkan dhibkaagoo keliya ma aha anigu waa dhibkayga annagoo dhanna waa dhibkeenna walaal aniga meeshaan cidlada inta aan kaaga tegi lahaa hal shay oo keliya waa inaad ii samaysaa aniga idil kadibna iska dhaqaaji qoraxda intaysan sii dhicin ka hor waxaan rabaa godka inaan sii galo cuntana ma haystano ma garanayo waxaan sameeyey cusmaan xalkeen bal walaal adiga godka sii tag anigana magaaladan tegayaa waxaan cun lahayn ayaan noo soo qaadayaa